Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ku soo dhawaada janalka maalmaha. Gabar da'deeda weli aysan gaarin 20 sano ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa shil baabuur galay aabaheed. Nasiib darro, aabaheed waxa uu wax ka gaaray lugaha, waa uuna socon waayay. Dadaal dheer oo loo sameeyay kadib, xitaa waa uu awoodi waayay inuu istaago oo lugihiisa ku socdo. Gabadhii waxa ay go'aan ku gaartay inay ka harto jaamacadda, waxayna bilowday inay ka shaqayso mid ka mid ah isbitaallada khaaska loo leeyahay si familkeeda dhanka dhaqaalaha ay uga kabto. Gabadhii oo ku jirto shaqadeedii maalinlaha ah ee isbitaalka ayaa waxaa dhacday inuu isbitaalkii imaado bukaan wiil dhalinyaro ah oo u xanuunsanaya cudurka suuxdinta. Maamulihii ayaa gabadha ka codsaday in wiilka xaaladdiisa ay la socoto. Gabadhii waa ay aqbashay arrintii uu u soo jeediyay dhakhtarka, oo ahaa in markasta wiilka xaaladdiisa caafimaad ay ka war hayso. Wiilkii markii ay la kulantay ayaa waxa ay aragtay in uu yahay wiil aad u qalbi wanaagsan. Markii ay waraysatay xaaladdiisa caafimaad kadib, waxa uu u sheegay in uu qabo cudurka suuxdinta, walaalihiisna ay doonayaan in ay ka qaataan dhaxalkii uu aabihiis uga dhintay. Gabadhii waxay dadaal dheer u gashay inay la tacaamusho wiilkii xaaladdiisa caafimaadna ku dadaasho. Wiilkii waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan, salaadaha 5 waqtina aad u xifdiya. Maalmo kadib markii uu wiilkii xoogaa caafimaadkiisa fiicnaaday, ayaa waxa uu u soo bandhigtay gabadha guur. Gabadhuna waa ay ka aqbashay. Guurkoodii kadib ayaa ehelka wiilka mar walba waxay isku dayaan in ay kala geeyaan wiilka iyo gabadha oo aad isugu faraxsan. Gabadhii waxay u soo bandhigeen lacag si ay wiilka furiin uga dalbato. Gabadhiina waa ay diiday. Muddo kadib, gabadhii waxa ay qaaday uur, waxaana loo sheegay uurjiifkeeda inuu yahay wiil, uuna xanuunsan yahay. Markii uu dhasho kadibna ay dhibaatooyin fara badan kala kulmi karto, sidaas darteed ay iska soo riddo. Balse gabadhii waxa ay dhahday, wax walba Alle igu talagalay diyaar ayaan u ahay, waana ku qanacsanahay qadarta Alle. Gabadhii dhalmadeedii markii ay ka harsan tahay wax yar, ayaa waxaa dhintay ninkeedii. Waxa ayna ka shakisay in ninkeedii la dilay, sunna la siiyay. Dhanka iyo booliiska ayay u carartay, wayna wargelisay arrinta ay ka shakisay. Dhimashada wiilka kadib, reerka waxa ay guriga ka buriyeen gabadha. Baaritaanka booliiskana waxaa soo baxday in la dilay ninkeedii, oo sun loogu daray cuntada si dhaxalka wiilka ay u qaataan. Isla muddo bil gudaheed waxaa dhashay uurjiifkii, dhaxalkii aabihiis ayaana lagu wareejiyay. Kadib waxaa dhintay cunugii saqiirka ahaa. Gabadhii markii ay la wareegtay dhaxalkii oo dhan, waxa ay samaysay masjid aad u weyn, waxayna ugu magac dartay ninkeedii. Sidoo kale waxa ay samaysay madarase quraan, waxayna ugu magac dartay wiilkeedii saqiirka ahaa. Dhaxalkii intii u soo hartayna waxay la soo aaday dhanka iyo waalidkeeda, waxayna dabiib ugu raadisay aabaheed. Jaamacaddana dib ayay ugu laabatay, wayna dhammaysatay.